السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام عليكم walaalayaal meel walba joogteen ku soo waashaan waashihii iyo talooyinkii laba cadaar waa inaan nila wadaago marka insha Allah labadaba inaad dhegeysateen aad iyo aad u jeclaan lahaa marka codkii koowaad aan igu bilaabayaa walaalayaal. السلام عليكم ديقو واكو سلامي سان مر walba kuu sheego walaalka macaano wiil aad qalbi fiican baad tahay inta milyan qof aan ku arko social media qofka kaliya soo jiitay baad tahay anigu waxaan ahay gabadh walaashaa xaas ah haddaa moodayso inaan yacni si ninimo ku jeclahay ma aha saas xaas baana caruur baana laakiin waxaa soo jiitay bini'aadanimadaada saa qalbi fiican tahay waxaan ku rajo weynahay in ilaahay meel sida adduunka waxaa leh qofka adduunka laga jecel yahay aakhirana waa laga jeclaadaa maxay ahayd waxaa ka helaa markaad faniga tahay aad tiraahdo intaad lifeka soo gasho cidi kuma jirtee talow keligay baa iska hadla maanaa isla hadla haa waa iska hadli kartaa waayo dadkaa dhow daawanayaa dee hadalkaaga la socda khasab maan qof markaa ku jiro aad la hadlayso waxaa kaloo jirta dhowr waxbaa raba inaan kaala hadlo yihiin hooyadaa oo kale iyo faamilkaaga hooyadaa waa iska caadi anigan ilmaan leeyahay markaas ka xanaaqay looyana aysaa ilmaha ka rabay ay samayn waayaan ama wax samayn waayaan waxaan iska dhahaa maxay ahayd toor iga tag inaan ku dhala ma ahayn waxaas waa la iska dhahaa waa waalid jacayl baa ka keenaya marka adigu hooyadaa ha u bixin walaa hooyadaa waa ogaana hooyadaa jeceshay waxyaabahan kugu jeclaya ka mid tahay qalbigaagu aada ugu furan yahay hooyada adduunkaad ugu jeceshahay waa dareensanahay iyaduna sidoo kale maxay ahayd toor ducaaduna hal mar bay dhacdaa waalidka laba goor ma dhacdo hooyadaa already markay dhihi jirtay dadka igu jecleed markaasi ducadeeda kuu dhacday wixii ka dambeeya hadda khaladaadka hadduu dhaco iyadoo kaa tirsanayso taas xisaab male hooyo iga raalli hoonbaa kaa xigta midda kale qof waxaa tahay waxaa yacni dadka faraxsanaa isku sheegto ilaa anugu shaahidtuyo maqyaamaa laima soo taagayay adaa isku sheegay marka waxaa tahay qof damiir leh oo qof fiicana oo dhaqan leh sababtoo ah muuqaalkaagii wax iska bedelay male dadkan kale wasakhdaya waxaa isku sheegay edabta darane xitaa iska dhaaf waxay iyagu fiilinkooda ilaahay ku abuuray taas waa gaale bini aadamkayn ka xishoon oo waxayn uga xishoonin timahayse kale ka dhigaan garhka isu diidaan way isjejilciyaan yacni qof sharaf leh baa tahay oo yacni damiir leh oo og inaan isku xidhnayn nimadaada iyo waxa kaleeto ma fahantay waxyaabahaas way waxyaaba dadku ugu jecel yihiin nin kastoo raganimo isku sheegaya nin fuul isku sheegaya fuula waxaan ka wadaa nin buuro ah adiga ka maa qurux badan oo ka raganimo muuqaal ahaan fiican kolley anusaan arko ilaahayna qurux buu ku siiyey yacni qurux raganimaad leedahay soo jiidasho oo raganimo nin rageed ah maxay toole waxaan kale wax kaa dhibsan male waxaa layidhi mataqaanaa dad baa waxay yidhahdaan qofkaas wuu qurux badan yahay markaasaa la yidhahdaa quruxdu maaha qofka soo eegyahay dhaqankiisaa qurux u ah dhaqankaaga adiga qurux kuu noqotay raganimo kuu noqotay waxaa tahay oo dhan baabi'isay waayo dhaqan baad leedahay qof fiican baad tahay qof aada wanaagsan baad tahay midda kale qof waxbartay baad tahay saan kaa arko hadis markaad hadlasoo kale dadkan iska badooday social media dad kale ku mashquulsan yihiin adigu taadaad ka hadashaa naftaadaad ka hadashaa adiga iska hadla maanta waxaasan sameyn weligaa xitaa dadkan kale ee dadka faraxsana kama hadashid weligaa ma soo hadal qaadid aliisa iyagu kusoo galaan oo aad ka jawaab bixiso way dhacdaa laakiin inaad maanta lagu mashquulsanataa hebel basaas weeye aniga maxaa layga rabaa aniga aqaana mid saas nacnacda noocaasna samaysid waqtina kuma lumisid aduu damiyaan soo koobi karaa waxyaabaad ku fiican tahay aduu isma og waxaa le qofku isma ogee dadku say u arkaan buu yahay maxay ahayd tooy waxaan kaloo ku sheegi lahaa maxay ahayd tooy waxaan kale dadka faraxsan dadku anu kulli saanu arko anu saynisiyahana ma ihi dhakhtarna ma ihi maxay tool qof cilmi waxaa u lena ma ihi laakiin qof magaalo ku raagay baan ayago garanaysa wax walba dadku laba nooc bay u noqdaan waa dadka faraxsan
ilaa laa magacan na bareen waxay u noqdaan mid waa mid dad bareen oo wixii iskala qabsaday markaa uu iska jeclaysto sidana oo been laa waa idab daro taas midna waa wax ilaahay ku abuuray oo dee labeeba uu jiro qof xubinta taranka oo laba u dhashaa way jiraan midna waa mid ilaahay ku abuuro dee ilaahay baa qofka saa u abuuray nothing you can do dareenkaasuu leeyahay waxba lagama qaban karo kuwa marka isbaree iyagu baray kuwa dembiga leh waa kuwa xun tan kaleetee adigu aad tahay ilaahay ku abuurayna ilaahay isagaa qof kasta suu gelaya waxa ilaahay kugu abuurayna kuguma cadaabayo waa ilaahay isaga abuur ma wuxuu ku abuuray kugu cadaabi karaa anigu aanusaan u arkayaa marka adigu hay soronin yacni wax dadku waxay ku dhahaan xun baa tahay iskanoo cadaabad saa ku geliya waxaas ma aha anigu hadda gabadh kalarka madowga aan ah haddaan dhao kalarka madowga laii sameeyo yacni qur-aanka madow ma fiicno marka waa la cadaabaya oo qur-aanka wuxuu yiri qof madow waa la cadaabaya taasan nin madowban ku dhashay waa for example marka wada ah qur-aan ma dhigin waxaas haddii doorna madowga diintu ay diidayso oo anigu ilaahay madow ii dhaliyay ma lagu cadaabaya waa maya marka waa saas oo kale de wax ilaahay ku abuuray adiga san ka arko wax qofku barayna ma aha dadka ciyaar suuqa yiraahdo ma tihid maxay ahayd tooy oo maxay ahayd tooy waa la soo xoogay saasan ku bartay iyo niman baa soo xoogay saas waa la soo sirciyo saasaa ga dhigtay dadka faraxsan ma tihid runta ka hadashaa waxaa tala anigu ilaa yaraanteeda saasaan ah marka wax ilaahay ku abuuro alxamdulilah baa la dhahaa haddaad rabto inaad iska bedeshana kaba si fiican oo aad isku daydo xitaa ilaahu maadaama aad aniga saa ii abuurtay haddana mujtamacii kuma dhex jiri karo waan isbedelayaa taasna waa wax kasii fiican calaayi kula xaal isku soo duduub maxay ahayd tooy qof aada u fiican baad tahay calaa kulli xaal qof aada u fiican baad tahay qofka dadkao dhan saa u wada arkaan inuu qof fiican yahayna ilaahay ma dhibaateeyo jannadiisuuna ugu bishaareeya ilaahay sida adduunka uu kaaga jecel yahay aakhirana kaaga jeclaado jannada kuga casumo keep going baan ku iri walaalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I love you so much, my brother. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أدبنكو سلام يا ديقو ولالكي قالي my brother my big brother أدبنكو سلام يا هو يدا شرفت له عد كذا نوسو قد بسنة إلهي وحن قرأتيني إنه الليباني وقف وفهم يريد مقالة وهي soomaalida jaahilka ama aad baanu salaamayaa hooyadaas igu salaan please hooyadaa igu salaan hooyadan codka kuu soo duubta ilaahay khayr ha siiyo waa runteed waa hooyadaadii labaad weeye khadarow annaga dhan waxaanu nahay mali runta haddaad doonaysid aniga hadda hooyadii aabay way dhinteen laakiin xitaa markay noolaayeen ma dareemayn inaan waalid haysto wallaahi ma dareemayn inaan waalid haysto ma dareemayn noloshayda ma dareemin inaan waalid haysto dhammaan agoon iyo rajaanahay runta haddaad doonaysid dhalinyarada soomaaliyeed dhammaan waa rajiyo agoon inta yaradha hadda dee qurbaa ku dhadhalatay ee dhowr jeer yaryar maahae laakiin dhalinyarada kale soomaaliya inta dagaal ku dhacay kortay waa wada rajiyo agoon marka khadarow sorry deeqow caloosha xiran ragaa tahay caloosha xiro dhammaan kula min baanu nahay adduunka dhanna way ka jiraan xitaa qofka hooyo aabba haysta only magacuun baa iska joogee ma jirto jacayl madaxa lagu salaaxayo jacayl badan ma jiro ilmo lasoo dhawaysanaya ma jirto qofka hadduu qalad yar sameeyana wayba kasii daran tahay hadda kahor waxaan xusuustaa gabar walaashay ayaa anaga meel baadiyaha deganaan jirnay bacdeen reerkii bay ka carartay gabar qurux badan bay ahayd aabe qori buu soo gatay qoriga dadka lagu dilo rasaastu ka dhacda ayuu soo iibsaday wuxuu yidhi haddaan maqlo way garacatay oo ilmay dhashay waa tooganaya qori baa guriga u ooli jiray wuxuu yidhi annaga dhan macaaniga kulligeen wuxuu yidhi naagtaan maqlo inay ilmo dhashay waa tooganaya annaga dhan sas baa nagu dhacay argagax baa nagu dhacay xitaa haddii aan markii dambe aan damacno inaanu reerkii ku noqonno ama nin aan isbaranno waxaan is oran jirnay armu idi dilaa haddaan nin isbaranno waxaan is oran jirnay ninkan armu uur idiin yeelaa oo maxay hadhowdi joogtaa yani annaga dhan argagax baa nagu dhacay marka waxa weeye nolosha war naftaada u noolow war naftaada u noolo qofnaha u noolaan hadda ayaamaha wallahi walaalkay qaaliyaad xukuma qarinayo waxaan kaa diri waad yar caatowday aad baad u fakertay marmarna
mataqaanin waalidka hala caabudo waalidka hala caabudo waalidka duusa isaga ku rabin maxaa ku samayne waxaa jira waalid caasi iyo ilma caasi waalid ilmihiisa caasiya iyo caruur waalidkooda caasiya marka waalid caasi qof ilmihiisa dadka waalid caasi iyo waalid caasi weeye waalid qofkiisa waalidkii caasiya waalidkiisa caasiya iyo qof ilmihiisa caasiya marka soomaalida waxaa ka buuxa qof ilmahooda caasinaya marka haddayan ku rabin ha khasbin laakiin adiga waa tirigaraysa ilaahayow waan tirigaraya waad ii jeedaa ku dheh ilaahayow waad ii jeedaa ku dheh ilaahayna waad u toobad keentay annaga dhan qofaan qalad samayn ma jiro qof waa runteed maamada waxay tiri diintu maaha bay tiri xijaab iyo khamiis iyo gar lala baxo maaha diintu waxa weeye markaad keligaa aad tahay wax aad ku dhaqantid masquusha markaad ku jirtid qolkaaga keliga markaad ku jirtid sidaad ilaahay ula macaamishid weeye diintu oo markaad keligaaga tahay diin ikhlaaska camalka ikhlaaska yani taa weeye markaad guriga keligaa joogtid markaad dariiqa keligaa maraysid haddaad telefoon ku hadlaysid waxaad ku hadashid maxay ahayd waxaad ku hadashid micnaato haddii marka qofku keligii yahay weeye diinta runtaa qofku sida u dhaqmo diinta maha khamiis la gashado maha gar lala baxo maha dadkoo la istuso maha salaad dadka hortooda la tukado maha sida realitiga waa camalka maxay ikhlaaska oo adiga ilaahayda dhex mara weeye saxaabtii maxay ahaydeen salaadahooda way qarsan jireen camalkooda fiican way qarsan jireen maxay dadka waxaan dhagaystay nin asxaabi ayaa habeen salaatuleyl soo kacay ilaahay isbuu rabay inuu baryo u cibaadaysto janno weydiisto marka ninka asxaabiga soo kacay nin kaleeto oo asxaabiya ayaa kacay oo sanqartiisii maqlay ninkii rabay inuu tukado beerku dhulka dhigay yani wuxuu rabay camalka isaga ilaahay dhex maraya inaan la ogaan marka waxa weeye soomaalidu iyagaa ku xukumaya waa lagu cadaabayaa maxay ahaydeen waa inuu cadaabtaad galaysa iyagaa la wada cadaabayaa soomaalida waa la wada cadaabayaa in yar mooyaane oo masaakiina waxaa lagu cadaabayaa diin bay sheegtaan 100 sano isdagaalayaan qur-aanka intaa qur-aan bay dhigta carruurta way ku dilaan qur-aanka in ilmuhu dhigto diintu khasab maaha ilaahay wuxuu ku yidhi lakum diinukum waliya diinukum 30 sano isdagaalayaan qabiilo waxaa jira aan la guursan way isdulmaan waa dad maxay ahayd ilaahay diintiisa ka been sheegay waa kaas wadankoodii masiibada ku dhacday marka khadro waxa weeye yaan maxay wadaadda laysaga kaawada dhigin adaa laga yaabaa maanta soomaalida inteeda badan maanta adiga ayaa laga yaabaa inaad maxay ahayd ilaahay uga dhowdahay saa intaad publicada soo fadhiisatay baad waxaad soo kharibtay oo dhan ka sheekaysay maantana aad ilaahay hortiisa ka ooyeysaa oo aad leedahay tooba maxay ahayd waan qalad baan sameeyey oo aadan maxay ahayd soomaalida qaladka sameeyaan bay isqariyaan laakiin adu publicadaad iskeentay qofna maxamed sida maamadu sheegayso qofna maxay ahayd wax kuma sheegtid xitaa dhoolla cadaynta aad markaad soo fadhiisatid youtube-ka aad qoslaysid aad wejiga noo dhoolla cadaynaysid waa sadaqo weeye waa sadaqo qof reer magaala tahay dadka lala hadla yaqaana dhoolla cadayntaas aad dhoolla cadaynaysid hadalkaa fiican waa sadaqo marka kaabe waxaan ku yidhi hore u soco noloshaada u noolow qofkaan ku rabin qofku doona ha ahaado hooyadaa cadaabay janno kuuma hayso waad raadisay way ku diiday marka maxay ahayd hore u soco wajaaga labadan beri waxaan ka dareemayaa xoogaa inaad murugootay inaad hurdo fiican seexan naftaada waa inaad soo celisid qofka fekerka iyo barbaranka uma fiicna jirkaagaa gurmaya naftaada dhammaanaysa nin dhallinyaraa baa tahay maxay ahaydeen hore u soco asalaamu calaykum maamadaana ilaahay dembigeeda ha dhaafo iyo tii shalay maxay iyaduna maxaadirada akhrinaysay maxay ahaydeen laakiin anuu talaanba kasii helayba ilaahay khayra ku siiyo aad baan kuu salaamaya oon ku taageersanay garabkaagaanu nahay annaga walaal iyo ehel ku ah yaa khay hore u soco asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة والعافية إلى وقت دابا إن شاء الله.